بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرتي إذا هو ذا نقطعون يساوي وبرنامج كيني شلي مانتا وأنو هديرة كسرنو شلي وحي نوقف سميك ديجان كسومالي ذا هان يمانتا هالكا إنه مرينو يجوده هان بهايان كجدوجا هالكوية برنامج كينن أو أنت بدن بهانو أو تلاقي الله إنه نقطة بونتو إسكو حدا بالشدة يدولة ده يمركزي إن مسؤولين ته bulshada oo eegmata xilka oo hayaan inay markaas kala xisaabtamaan isla markaasina soo horfadhiistaan kalsoonina u muujiyaan si kala warqab la'aanta iyo kala qoqobnaanta meesha looga saaro barnaamijkan ayuu wuxuu noqonayaa mid lagu xoojinayo xiriirka dadweynaha shalay iyo maanta markaasi marti sharafta maanta ka soo qayb gashay wareegiisa labaad aad ayaan uga mahadcelinaynaa guud ahaanba si guud iyo si gaaraba waxa markaasi marti sharafteena koobaad ay yihiin mahadnaqa koobaad aan u jeedinayno wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha mudane Cabdiraxmaan Daahir iyo komishinka shaqo abuurka Marwo Hibo Axmed oo aanu mahadnaq gaar ah si weyn ballanqaadkiisa ay nooga soo aqbaleen aan uga mahadcelinayno barnaamijkeena ayaa inta badan wuxuu noqon doonaa mid idinku adoorka leedihiin oo su'aalaha markaas dhankiina ay ka imanayaan annaguna aan ka noqonayno dhagaxaad isla markaasna aan qaybinayno dooda barnaamijkan waxaanu ku bilaaban doonaa إن وريجا كوباد أو أنوسين إنهم لبده وزير أما لبده مسؤول إن 8 دقيقة أو مركز هي كسور بحين كران إسلام مركز سنة كسور كوبا يوم وربحينها مركزي وحيابها وقف صومي طبعا كي سنة هراء تجي حبيس كأما إن وزارة أو مسؤول كي هي هلك أي مركزي أي أحد جديد دين عهور مركز وحوقف صومي إيه هذا وحي هيان أنكو بلابا مدني عبد الرحمن ظاهر أو مركز سيانسين أيو 8 دقيقة dhinacayga midig wasiir ku soo dhaw waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda TV-ga deegaanka oo barnaamijkan soo diyaarisay waxaan aaminsanahay inuu yahay barnaamij guud ahaan inoo iftiiminaya wixii inoo qabsoomay waqtigan isbedelka wixii waqtiga loo yaqaan isbedelka kadib si dadku ay u dareemaan muddada 2 sano ee barka wixii toosmay iyo wixii khaldamayba si bulshada looga wada hadlo waxaan aaminsanahay barnaamij arinta buundo noqonaya inuu yahay ugu horreyntaana si kooban u soo dhigin dhinaca wax qabadka waxaan rabaa inaan iftiimiyo maadaama barnaamijkan aan arkay falcelin kala duwan in laga sameeyay in dadka qaar ay u qaateen wax dhaliila oo in shalay la raadinayo wixii khaldana oo dadka qaar aaminsan maxaa dib loogu noqonayaa hadiya jeer oo arrimihii dambe loo eegay ama horu noo socdo waxaan aaminsanahay guud ahaan marka la rabo mustaqbal markaynu hiigsanayno aynu rabnayno in wax saxno oo mustaqbal hagaagsan aynu samaysano waxa muhiim ah in aynu garanayno meeshaynu ka nimid marka horeysa maxaa soo jiray in la ogaado waa qasab inaynu qiimeyn karno talabaad halkaynu taaganahay maanta labada markaan sameeyno bay noo suuro gali kartaa wax ka duwan wixii jiray wax maanta jiray inaynu sameeyno sababta aynu shalay u jaleecsanayna waxa weeyaan inaynu ogaano wixii naga xumaaday inaynu 10 ka baran waxyaabihii khaldamay in 10 laga barto si aan dib loogu soo celin wixii inoo toosmay ee saxsanaana in iyagana aynu khibrad ka qaadano si iyagana loo sii xoojiyo loo sii wado marna ma ujeedo kale oo laga leeyahay in shalay laga hadlo ma jirto guud ahaan marka dawlad la yahayna waxa loo baahan yahay wax waqti la isbarbar dhigay inay jirto maanta inaan shaqo fiican haye in kale waxa lagu qiimeyn karaa wixii shalay jirtay inaan ka duwanahay in kale marka ugu horeysa taa haddii isbarbar dhigaasi jirin lama garan karo waxaan imanka aynu wadnaa wax saxsan oo faa'iido noo soo kordhinaya ma yahay mise ma wixii shalay jiray wax ka duwan ma sameeyay oo dhaama taa waxa lagu ogaan karaa markaynu isbarbar dhigno shalay sidan ay ahayd maantana sidan ay tahay labada marka la isbarbar dhigo waxaan isleeyahay sawir fiican ayaa ka soo baxay marka guud ahaan yaan loo arkin wax si kale wax loogu eegay inay tahay in dawladahan sida kaliya wax lagu qiimeyn karo ay muhiimka inay tan oo kale tahay ta mustaqbalka marka la eegayna oo hadda maadaama waqti doorashada lagu jiro in la qiimeeyo axsaabtu barnaamijyada ay soo bandhigeen maxay tahay manifestada xisbi kasta leeyahay maxaa ku qoran muxuu leeyahay waan sameyn xaaladan muu la socdaa hadda jirta muxuu kaga bedelayaa sidoo bedelay labadaas ma lagu qiimeyn kara marka maadaama sidaa tahay waxaan aaminsanahay barnaamij wanaagsan oo dadka wax badan u iftiimin kara inuu yahay guud ahaan markaan bilaabo sectorkan laantan dawladeenu ka hadlano sectorka horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha waa sector ballaaran waa sector loogu talagalay inuu jiheeyo horumarka magaalooyinka deegaanka ugu horeynta inuu siyaasad ahaan istaraatiijiyad ahaan inuu jiheeyo magaalooyinka sidii u korayaan talabaad inuu qaabeeyo nidaamka loo fulinayo dhismaha deegaanka waa regulatory oo kale inuu hubiyo nidaamka fulinta dhismaha inuu yahay mid waafaqsan shuruucda wadanka iyo deegaanka uu yaal maaha ka xafiisku fulinayo ka deegaan ahaan guud ahaan waxa la wixii dawladdu ay fulinayso teena
mashaariicda federaalku wado inay yihiin kuwa waafaqsan nidaamkii shuruucda loo dhigay marka waxaan isku dayay maadaama sidaa wariyuu sheegay waqtigu kooban yahay oo ay wanaagsan tahay in su'aalo iyo jawaabaha looga faa'iideysto in si kooban meelaha muhiimka ah aynu ku cabiri karno maxaa qabsoomay inaan si guud u soo dhigo waxyaabo aan guud ahaan ahayn maadaama sectorku laantu ay aad u ballaaran tahay dawladahan waxaan isleeyahay marka horumarinta magaalooyinka laga hadlo siiba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha magaalooyinka arinta ugu muhiimsan waa jidadka magaalooyinku jidku magaalo kaliya uma muhiim ah ilaa miyiga waa muhiim laakiin magaalana horumarkeeda iyo meesha jid laga fuliyaa had iyo jeer waxay wadataa maaha jidka kaliya ka fulay maalgelin baa daba socota wax fara badan oo isbedelaya jira marka jid la sameeyo guud ahaan markaad eegto magaalooyinkeena deegaanku waxay ahaayeen kuwa si guud uga aradan dhinaca jidadka marka runta aynu isku sheegno markaad eegto wadanka caasimadaha kale deegaanku meeshii ka gaareen oo intiina badankiina aan miisaan tagteen oo aragteen iyo heerkeenu taagnay wax la isbarbar dhigi karay ma ahayn taasi waxa sabab u ahayd inaan wax maalgelin lagu sameyn dhinaca jidadka haddaynu u soo qaadano caasimadeena muddadii 8-9 sano ahayd ee ka horreysay isbedelka jidadka muhiimka laga sameeyay waday laba ahaayeen magaalada Jigjiga jidka aynu naqaanay wadada Kaaramarda maraya iyo jidkii jaamacaddu muddo kooban buu ku burburay waxba laga faa'iido jidka kaliya jiray aynu jid oran karno waxa weeyaan jidka wadada Kaaramarda laga sameeyay muddadii imika u dambeysay 2 sano ugu yaraan waxay dadku arkayaan inagoo si leeyahay u soo dhiganaba in afar jid ay magaalada Jigjiga ka dhismeen jidkii shanaadna ka socdo jidkii jaamacaddu dib loo dhisay jidka Ayardaga jidka Ducaale loo yaqaanay Xamdo Hotel ka tagay ilaa jidka Sodonka ku xidha iyo jidka Sheekh Nuur Ciise waxa hadda gacanta lagu hayaa oo iyaduna isla mashruucan ku jirtay jidka wadada Wajaale ilaa Kaaramarda isku soo xidhay wadada Kaaramarda oo isaguna 3 kiiloomitir oo hadda shaqadiisu ay ku jirto afartaan bay isku mashruuc yihiin afartaan marka laga tago muddada sanad iyo barka soo socda marka 4 sano la gaaro waxa noo qorshaysan inay dhamaato jidad 28 kiiloomitir isla magaalada waxa ku jiro qandaraaskiisii la bixiyay jidka Sodonka loo yaqaan ee wadada Harar marka laga soo galo ilaa wadada xagga Wajaale iyo wadada Dhagaxbuur isku xidhaysa kaga soo dhaco 8 kiiloomitir oo reer waa la bixiyay qandaraaskii inay shaqadu bilaabmato la sugaya wadada Tulli ka iimanaysa Jigjiga wadadii jidka Hadhmukaale iyo Jigjiga isku xidhayay waxa isagana heshiis laga galay 3 kiiloomitir iyo badh in jid magaalada oo labahaada in wadada shirkadaas ay noo sameeyso afar jid oo kale oo imika toddobaadkan heshiiskiisa la galaya jira oo jidka Saylada taga magaalada jidka taga iskuulka narsiga jidka Ayarhaylka ee xagga guryaha baarlamaanka ku yaala jidkii Ayardaga laba jid oo labada dhinac uga kala baxay oo midna jaamacadda ku xidhayo midna uu ku xidhay jidka Sodonka iyo jid Taiwan-ta cusub iyo xaafadda Ayarhaylka isku xidhay afarta jid iyaguna imika toddobaadka qiimeyntii nidaamka iibku way dhamaatay imika toddobaadkana la galaya maamulka magaalada marka jidadkaasi markay dhamaadaan guud ahaan 28 kiiloomitir oo wadooyina ayaa magaalada Jigjiga ka qabsoomay magaalooyinka deegaankeena kala markaynu eegno magaalo laga fikiray xataa in wada laga sameeyo ma jirin markaynu runta arag magaalo xataa qorshe ku jirtay in wada laga sameeyo ma jirin labadan sano inkastayna gabagaboobin Dhagaxbuur Qabridahar iyo Goday dawladdu saddexda magaalaba waxay ka bilowday mashaariic jidada magaalada Dhagaxbuur oo 3 jid ahayd mid uu dhamaaday labadii jid kale mid waxaan ku rajooyn lahayn kii labaad inuu dhamaado oo jidka wadada magaalada ka baxay dhinaca waara u baxay inuu dhamaado ciida haduu Ilaahay yiraahdo waxaan u jeedaa May 25keeda inuu dhamaado Goday oo ahayd 4 kiiloomitir iyo badh waxa dhameystirmay 3 kiiloomitir intii kalena way socotaa inay dhawaan soo gabagaboodaan filana Goday xafiis ahaantaan anagu wadna kaliya maaha waxa isaguna inta in la ka wada xafiiska jidadka deegaanka marka la isku daro 10 kiiloomitir marka anagu xafiis ahaan waxaan si gaar ah u wadnaa 4 kiiloomitir iyo 600 mitir marka inta ilaa 3 kiiloomitir baad dhamaatay shaqadeeduna badankeedu way dhamaatay oo shaqada ugu muhiimsan wadooyinka la dhisay markaad aragteen waa biyo mareenada weeyaan laamida yara dhaxda la dhigay muhiim saa uma sii lacagta 560 waxay ku baxaysaa biyo mareenada marka wadooyinka hore la dhisay dhibaatadayna haysatay waxay inayna jirin drainage inayna biyo mareena sax lahayn wadooyinku marka lacagta ugu badan ee maanta aynu wadooyinkan ku bixinaa 560 waa biyo mareenada in la sameeyo dadku inay dareensay ma filay imka wadada laga sameeyay Sheekh Nuur Ciise iyo biyo mareenkii lagu xidhay ee wadadan weyn iyo wadada Ducaale lagu sii xidhay tog la geeyay biyihii magaalada dhinaca ka soo galay inay qabato imkana sidoo kale si khasaarihii loo yareeyay maalinta dhaweyd dhacay oo kale laba biyo mareen oo qorshahan ku darnaa jira oo korka laga sameeyay wadada Wajaale ilaa ka biyo mareenka jaamacadda ku xidha si biyuhu ay magaalada u soo galay marka arimaha muhiimka ah ee wadada garab socda waa biyo mareenada marka magaalooyinkeena kalena in loo hindiso in wadooyin laga sameeyo
wadooyinka labaad ee magaalooyinka laga sameeyo kuwa dhagaxa qoran weeyaan dhagaxa qoran muddadii 8-9 sano ahayd ee isbedelka ka horeysay waxa la sameeyay ilaa 8 kilomitir waxa laga fuliyay magaalooyinka ee dhagaxa qoran muddadan imika 2 sano waxa la sameeyay ilaa 3 kilomitir oo dhagaxa qoran oo meelo imika Shiniili ay ka mid yihiin hadda ka hor aan qorshaaba ku jirin ay ku jiraan meelaha laga sameeyay laydka wadooyinka Chayga markaynu eegno ilaa 180 kilomitir baa la sameeyay 2 sano 8 sano ka horeysay 336 kilomitir oo wadooyinka Chayga magaalada ayaa la sameeyay haba ka badnaatay 8 sano laakiin markaad u fiirsato sanadadu ay u kala badan yihiin waad garan kartaa laydka wadooyinka 43 kilomitir baa la geliyay 10 sano inaga horeeyay 2 sano waxa la geliyay 24 kilomitir iyo badh xagga laydka wadooyinka kaabadaha magaalooyinka markaynu eegno muddadii hore 4 kaabadood ayaa la sameeyay haddana muddada 2 sano 9 kaabadood baa la sameeyay marka waxaan aaminsan dhinaca jidadka marka la isku daro Chayga dhagaxa qoran iyo laamiyada in wax isbedel weyn aynu ka sameeynay qorshaha aan idin sheegayo oo isagu aan ahayn mid qorshe aan qaban doonaa laakiin imika sidaan idin sheegay 8 kilomitir idin sheegay waa mid heshiisyadoodu ay miiska wada saarayeen oo imika inoo qabsoomay arrimahaasi wax fara badan ayay ka bedelayaan meelaha laga sameeynayo jidadkaasi ama jigjigaha tama magaalooyinka kala baahata dhinaca kale weyn horumarin magaalo ahaan dhinaca guriyeynta weyn guriyeynta isagoo wadanku si guud ugu liita waxa haddana jirta inaynu si gaar ah aynu inaguna aad uga sii liidan oo dhinaca guriyeynta wax fara badan oo laga qabtay dawlad ahaan ay aad iskaga liidatay iyadana waxa la isku dayay in wixii aynu sameyn karno laga qaban karo inaynu isku dayno inaynu sameyno muddadii hore 420 guriyaha dadka lagu wareejiyay 420 guri ayaa dawlad ahaan inoo qabsoomay 2 sano 456 guri ayaa sameysmay oo garanaysiin oo badankooda laga sameeyay caasimadaha gobolada oo jigjigiyo meel gaar ah ku koobneen jigjiga kuma jirin in fact meelihii laga sameeyay guriyahaas 456 guri waxay ka qabsoomeen caasimadaha gobolada badankooda oo inta badan sida warbaahinta ku aragteen dadka xirfadlayaasha adeegyada muhiimka u haya bulshada macallimiinta xirfadlayaasha caafimaadka iyo dad kale badan oo danyar in looga faa'iideeyo meelaha inay guriyaha ay ka faa'iideystaan haddana waxa gacanta lagu hayaa 116 guri oo kale oo dheeriya oo shaqadoodu socotaa jirta oo 456 ku jirin laakiin waa sector u baahan in istaraatiijiyad ka duwan sidii aynu wax u wadnay in loo wado dadka in lagu dhiiri geliyo sidii ay nidaamyo ay ku helaan in guriyo ku dhistaan ay sameyn lahaayeen oo inaga total inaga maqan maadaama arrimaha la xidhiidha arrintii bangiyadu say u shaqeynayaan ahayd waayo Etoobiyada kale bangiyadu dadku inta badan waxay ku sameeyeen barnaamijyada horumarinta guriyaha lacag bangiga laga amaahdo taas maadaama in xaqiina suuragal ka ahayn in arrintaas ayna suura gelin inay dadkeenu barnaamij noocaas oo kala ay ka qayb qaataan kaabayaasha guud ee kale oo xagga leyd gelintu ay u muhiimsan tahay magaalooyinka stationadii lagu sameeyay Qabardahar iyo Dhagaxbuur magaalooyin la sagaala ayaa ka faa'iideystay maanta in leyd helaan meelo badan oo kalena leyd gelintu ay u socoto leydka cadceedda tamarta cadceedda laga dhaliyo oo qorila laga sameeyay hal meel maantana 3 magaalo dhulkii lagu soo wareejiyo shaqadu ay ka socoto 100 maayada Raatoole iyo Higlooli ay ka socoto ayaa iyaduna pipeline ku jira kuwaasna waa kuwa dhinaca kaabayaasha magaalooyinka horumarkooda wax weyn ka bedelaya oo wax weyn u tari doona marka guud ahaan waxaan isleeyahay wixii soo jiray waxa aad uga duwan inay inoo qabsoomeen dhinaca horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha guud ahaan dhismaha waxyaabo fara badan oo aan sheegin baa jira wixii su'aasha ka soo baxay baan ku dari maadaama muhiimadda saarayay dhinaca horumarinta magaalooyinka dhinaca muhiimkiina ay tahay waxaan isleeyahay wixii inta ka dambeeya inaan u daayo wixii kolba dhinaciina ka soo baxa inaan si nidaam su'aashii jawaabta aan ku soo bandhigno wixii kolba loo baahan la siiftimay aad badmaasantay aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirku wuxuu ku soo koobay muddo 10 daqiiqo iyo 30 second aad baan kaaga mahad celinaynaa warbixintaadaasi iyadoo markaas ay nooga xigi doonto komishinka shaqo abuurka Marwahiba Axmed oo markaas iyadna marti sharaf ku ah barnaamijka Marwahiba ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullah ramadaan kariim ayaan idin leeyahay marka xigta barnaamijkan shaqo abuurka la yiraahdo ayaan rabaa wax yar inaan ka yiraahdo saa la wada ogyahay shaqo abuurku waa barnaamij ay dawladdu hindistay lagaga saarayo dadka badan tirada badan ee shaqo la'aanta ah dadka wax bartay iyo dadka kale isugu jira marka barnaamijkan
dowladdii hore ama nidaamkii hore jiray iyo nidaamka hadda suu cabdiraxmaan sheegay markaan isbarbar dhigayno waa halbeeg inaan ka dhigno ama baseline inaan ka dhigano oon hore u soconno weeye marka barnaamijkan shaqo abuurka ah waxaa loogu talagalay laba qaybood oo ah hadda sida jirta iyo markii hore inaan in yar idin ifiyo aan rabo markii hore barnaamijkan shaqo abuurka waxaa gacanta ku haynaya madaxtooyada deegaanka gacanta ku haynaysay oo ah lacaga dayna la bixin jiray oo barnaamij la taaban karo shaqo abuur dhab ah laga samayn jiray muun ahayn guddiyo laguma shaqayn jiray lacagaana miiska ayaa lagu qaybsan jiray marka waxaa dhib noqotay in la helo dadkii shaqo abuurka loo sameeyey ama xogtoodii oo dhab ah in la helo oo la taaban karo si loo taakuleeyo xitaa in data dhaba la helo ayaa dhib noqotay marka kadib isbeddelka kadib waxaa la hindisay in barnaamijkan laga dhigo laba qaybood barnaamijka shaqo abuurka miyiga iyo barnaamijka shaqo abuurka magaalada oo miyigana hoos geeyo beeraha shaqo abuurka magaaladana loo geeyo howlaha guud saasaa shaqo abuur loogu sameynayay barnaamijkaasoo guddi standing committee ah uu maamuli jiray oo standing committee-ga madaxweyne ku-xigeenku uu jeergarayn jiray oo lagu qiimeyn jiray habsami socodka shaqo abuurka marka haddaan eegno waxqabadkii la qabtay 8 sano 2003 ilaa 2010 sidaan daatada aan hayno 11665 shakhsi ayaa shaqo abuur loo sameeyey oo macnaha way ka faa'iideen aan isleenahay hadda laakiin haddaan sanadkan oo keliya ama 2012 haddaan qaadano inta shaqo abuur loo sameeyey waa 90,000 oo shakhsi xagga magaalada oo keliya markaan eegno 90,000 oo shakhsi ayaa shaqo abuur loo sameeyey haddana markaad eegto xaaladda guud shaqo abuurka dadka ka faa'iidaystay ama lacagaha la bixiyay ee dawladdu ay ku fangaraysay iyo bangiga adduunkuba markaad eegto lacagaha laba loo qaybiyay mid waa deyntii caadiga midna waa revolving ama lacagaha wareegtada deynta la yiraahdo deynta la revolving fundiga sanadkii hore markaad eegto sanadkan markaad eegto waxaa 100 milyan ku dhow ayaa magaalooyinka in shaqo abuur loogu sameeyo qorshaysnaa miyigana 150 ayaa qorshaynaa milyan ayaa qorshaysnaa in shaqo abuur loo sameeyo 89,000 oo shakhsi in shaqo abuur loo sameeyo taasina si habsami leh ayay u socotaa sanadkan kaliya hadaad eegto sanadihii hore wax daato oo laga hayo dadkii shaqo abuurka loo sameeyey ama lacagi inay soo noqdaan revolving fund macnaha lacagaha deynta ee wareegta wax soo noqday ma jirin taasina dhabar jab ayay ku noqotay shaqo abuurka laftigeeda oo waxay noqotay shaqo abuurka fahan la'aanta ee bulshadu ay ka haysatay in lacaga la qaybiyo ay dawladdu la haysato hadda waqti xaadirkan aan taaganahay dhibaatooyinkan haystaa waxa weeye in shaqo abuurkii loo qaato dawladdu lacag ay dadka iska siiso khaasatan dhalinyarta markaan eegno dhalinyarta shaqo abuurka loo sameeyay ee lacagaha la siiyey intooda badan qaydinka ay ku qaybsan jireen oo miiska lagu siin jiray miiskay ku qaybsan jireen hadda laakiin shirkado waxaa jira 38 shirkadood baa jigjiga kaliya ka shaqeeya oo la taaban karo maanta jooga oo shaqo abuur dhalinyarta loogu sameeyey shirkadii keliyana 2 qof 3 qof ayay shaqaalaysiisaa oo iyaguna shaqo abuur ay u sii sameeyeen dhalinyarta deegaanka markaad eegto wax la taaban kara laga qabtay haweenka weey haweenku lacagaha deynta la siiyo si habsami leh way soo celiyaan si habsami leh way ugu shaqaystaan noloshoodana waxba iskaga bedelay marka lacagaha la siiyana way soo celiyaan 90% hadaad eegto haweenka PT3 ama ganacsiga yar yar markaad mid dhaafto midka kale shaqo abuurka ayay ku heleen haddana waxa noo qorshaysan 50% in haweenka shaqo abuur loo sameeyo maadaama dadka ugu badan ay ka faa'iideystaan ay yihiin sidaas la mid ah dhalinyarta hadda sanadkan waxaan bedelay istaraatiijigii shaqo abuurka guud ee ahaa in labada xafiis ay ku hoos jiraan oo laga dhigay commission saad ka warqabtaanba commissionka waxaa la sameeyay shaqo abuurkii miyiga iyo shaqo abuurkii magaalada labadaba in la ismeel la isugu keeno hal budget ay yeeshaan hal qorshe iyo hal warbixin ay yeeshaan ayaa lagu guuleystay commissionkiina waa la sameeyay qorshayaasha aan qaadanin waxa weeye dhalinyarta soo qalin jabinaysa TVET-ka iyo jaamacadaha kala duwan soo qalin jabinaysa
dawladdu guud ahaan ay shaqo siin karaynin macnaha markaad eegto sanadkii 3,000 oo dhalinyaro oo deegaanka Soomaalida oo kaliya ayaa soo qalin jebisa marka dadkaas oo dhan in shaqada dawladda kaliya ay la siiyo waa dhib marka waxa la qaatay shaqo abuurka loo sameeyo hadda commissionku wuxuu ku hawleeyahay qorshahaas in la sii wado oo hal meel laga maamulo kiimiyiga iyo kii magaaladaba waxyaabaha kale waxaan u deynayaa maadaama ay tahay inaan idin ifiyo una ahayd shaqo abuurku waxay ahayd waxaan u deyn doonaa su'aalaha ka soo baxa dhalinyarta iyo dadka halkan fadhiya aad baad u mahadsantihiin warwahiba aad baad u mahadsantahay waxay kusoo koobtay 7 daqiiqo guud ahaanba warbixintii komishinka shaqo abuurka oo markaasi iyaduna warbixin ay markaasi ka soo jeedisay wixii uu qabsoomay iyo waxaan u qabsoomin anu galo wareegga labaad iyo wajiga labaad oo aan eego kaalinta dhankiina ayay su'aaluhu badanayaan oo markaasi ay noqonayaan waxaan jecelahay inaan geedi socodka isla qabadsino isla markaasina waxay noqonayaan labada mas'uul hal su'aala oo labada wasraacinaysaan su'aasha aad qabto waa laba su'aalood baa qofkiiba loo ogol yahay inuu soo jeediyo ama hal tala bixinayo hal su'aala oo markaasi su'aasha uu gudbinayo xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo komishinka shaqo abuurka waa la israacinaya su'aasha labaadna sidoo kale dhammaantiin Ramadaan Kariim runtii barnaamijkan warta barnaamij fiican ujeedadiisuna waa xog iyo xog ogaal in xogaano laakiin qolada warfaafinta su'aal baan weydiin lahaayo deegaankeena jiritaankiisu ma 8 sano iyo intii iyo 3 sano yani ma 11 ka unba yani wixii ka horeeyay deegaanku ma jirin miya wax lama qaban miya yani hadalkii waxaan daba socdaa ooneen wariyaha ahaa oon 10 sano 8 sano iyo 3 sano ka dambeeyay yani inta oon miyaynu jiraawi arusoo noqon su'aalahayga wasiir Cabdiraxmaan in ka soo garanayno labada wasiir labada madax xafiisyada hadda inala jooga hadda intay joogeen xafiisyada waynu garanaynaa laakiin waxaan ku fiican waxa alxamdulillah labadooduba waa xogogaan wixii kale ka jira labadooduba aad bay xogogaan u yihiin Cabdiraxmaan waxaan weydiin lahaa wadooyinkii baad ka bilowday dabeecadaha dawladaha Afrikaanka wax walba hal magaalo isugu geeyaan halka magaalo baa waxa laga helaa ugu yaraan intaasoo wado iyo laami oo jigjiga laga qabanayo ayaa tilmaantay haddii hadda wasiir kale la keeni lahaana intaasoo kale oo jigjiga laga qabto sheegi lahaa waa hadda wasiir kale oo xafiis kale marka mashaariic sameynteenu sideedaba ma hal caasimad kaliya wax u qabadba yani maqaabka un baynu ku soconaynaa wey waayo hadda maalmihin dhowto markay reebabkii deen hadda halkan ka baxdo istiraad degmooyinka tag degmo kaliya tagi karta waa dhif wey ma tagi kartid marka kuwa iyaga ayaa u dawlada wadooyinka faraha badan yaa u wada qorshaha soo socda ee 2014 iyo wixii ka dambeeya dhulka in loo kaco meedin ku jirta qorshaha qodobka labaad waxa weeye isla su'aashaas uun kaga baxay ama korontaha ato ama warisgaarsiinta ha atee deegaanadu laftoodu way ku liitaan degmooyinku aad baa loogu liitaa wixiina way yar yihiin inagoo wixii yar haddana maalin walba waxaynu sheegaynaa de markaad hadda wax sheegaysaan wax qurux badan baad sheegaysaan markaad meelaha tagtana wixii quruxda badnaa ma soo baxayo maalin dhoweyto 2 meelood oo isu jira ilaa 50 kilomitir 48 hours baan u kala socday oo dawaa wada la'aan wey waa infrastructure-ka marka ujeedadeedu waxa weeye magaalooyinka waaweyn u baad ku urursantihiin iyo jigjiga mise dhulka inta kalena qorshayaashu way idinku jiraan marwahibo markaad tiraahdo jaamacadaha 3,000 baa ka soo baxa 9,000 shaqo abuur baan u samaynay macnaheedu waxa weeyaan 30 sano ardaydii ka soo baxaysay baad shaqo abuur u samayseen intaynu ka warqabnana dhallinyaradeenna jaamacadaha ka soo baxa ama TV-ka ka soo baxa ama wax yaqaana
boqolkiiba 90 shaqo la'aan baa haysata shaqo la'aantu way nagu badan tahay midda kale xoolahan unaad leedihiin dad baan ku maalgelino waanu siinay xoolihiina lama hayo mayna soo noqon haddii aan marka horeba waxaan feasible study laga samayn oo la dersin sideeba xoolaha iyo lacagan ku bixiseen ilaa hantidan waa hanti dadweyne haddii aynu ku heshiin lahayn 250 milyan ayaa tiri waxa lagu maalgelinayaa sanadkan kuwa dhalinyarada magaalooyinka iyo kuwa miyiga marka la isku daro haddana khaldanayn 250 milyan de 250 milyan miyaynu u qaybinaynaa marka way iskala tegayaan mise waxbay noo soo celinayaan ma qiyaasi kartaa percentiga la soo celiyay xoolaha ummadda ee dadka la siiyay ma se qiyaasi kartaa percentiga wax soo saarka ee laga faa'iiday wixii ay dhalinyarada iyaga lagu maalgeliyay ee ay soo celiyeen haweenku way ku mahadsan yihiin hadday qaybtoodii dadweynaha wax uga soo celiyaan laakiin marka haddaad dareentaan de inay haweenka u yihiin miisaaniyadda maalinta badan dumarka u qoondaysaan hadday iyagu wax qabanayaan wax soo celinayaan de ma iyaga looga faa'iideeyo calaa kulli xaal waxaan uga baxayaa mashruucan oo de hadda cusub oo in la isugu keenayba ahoo mashruuc cusub oo shaqo abuura in la sameeyo ay tahay runtiina aan rajaynayo inaad wax badan ka qaban karto maadaama aad qof active tahay inaad wax ka qaban karto aan rajaynayo maxaa isbedelaheed samayn doontaan ee kuwii hore aad kaga duwanaanaysaan maraadkii un baad haynaysaan oo dee muxuu ahaa iskaashatooyinkii intanay keeneen mise ma ogtihiin dadkan aad maalgelinaysaan ee degmooyinka iyo xaafaduhu idiin soo gudbiyaan inay qoysas yihiin oo ila ahayn dadkii magaaladaa deganaa ama miyiga degan meeshaa deganaa yani waxaan uga jeedaa waan ka baxay aad iyo aad mas-uuliyiinta meeshaa joogtaa dadka ay soo gudbiyaan waa qoysasuun isku wada xidhane shacabkii ay ahayd dhammaan in la wada maalgeliyo maaha maxaad arrintaa ka qaban kartaan aad baad u mahadsantihiin waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay sida aad su-aalaha usoo jeedinaysin ee cadcadaanta leh marka hore aan ku horeeyo adeerka dolaal su-aaluhu soo jeediyey aadna waan uga mahad celinaya waxyaabaha uu soo jeediyey marka hore waxaan aan islahaa labada isbeddelka ka hor iyo isbeddelka kadib isbarbar dhig laakiin hadda waxaa muuqata markaan lahaa 9,000 oo qof oo shakhsi ayaa shaqo abuur loo sameeyey sanadkii 2012 markaan saa lahaa waxa ka dhigan tahay arday kaliya maaha su-aashii uu ardayda 30 sano soo jirtay ayaad u samayseen ahayd arday kaliya maaha laakiin waxaa lagu qaybiyaa ardaydu percent bay leedahay haweenku percent buu leeyahay dadka kale ee muruqmaalku percent buu leeyahay markaan leeyahay 9,000 ayaa shaqo abuur loo sameeyey waa shaqo joogto ah iyo shaqo ku meel gaadh ah 87% waa shaqo joogto ah loo sameeyey dhalinyarta 75% baa loo sameeyey dumarka marka la eego waa 2012 ilaa hadda waxaan sameynay baan idiin sheegayaa dumarka 44% ayaa shaqo abuur loo sameeyey oo cadaynna loo hayaa ay joogaan dumarkii shaqo abuurka loo sameeyey ka deegaan ahaan deegaanka ugu horeeya ee haweenka shaqo abuurka u sameeyey baan nahay qiimayntii heer dal ee la sameeyey marka la eego markaan leeyahay 3,000 oo arday ayaa sanadkiiba soo qalin jebisa hadda 3 sano ee ka soo wareegtay isbeddelka kadib 37,000 oo shaqaalaysiin caadi ayay dawladdu u samaysay ardayda soo qalin jebisay ee shaqo la'aanta ahayd hase ahaatee haddana shaqo la'aan baahsan oo arday badan oo kulliyadaha iyo jaamacadda ka soo qalin jebisa ayaa jirta ugu yaraan sanadkii marka la eego 3,000 oo arday ayay ku dhow yihiin waxa soo qalin jebiya marka kama dhigna intaasoo dhan baan shaqo abuur u samaynay laakiin marka la eego dadka dawladda u soo shaqo tagaya iyo dadka soo qalin jebinayay balansigiisu kala weyn yahay qorshe ahaan waxaan u qaadanay inaan shaqo abuur loo sameeyo dhalinyartaas sanadkan haddaan soo qaadanno qorshaha noo yaala 75% lacagaha revolving fund ama lacagaha wareegtada ee deynta aan siinayno shirkadaha yaryar ee samaynayno waxaa loo samaynayaa dhalinyarta deegaanka ka soo qalin jebisay
kulliyadaha iyo jaamacadaha kala duwan ayaa loo samaynayaa taa raaciye dhalinyarta maxaa criteria aad ku dooranaysaan xaafad ahaan mayn ahayn maamulada jooga inay xaafad ku soo samayso horta way dhici jirtay in xaafad ahaan lagu soo doorto oo dadka looga dhigaba dadkii meesha joogay ama maamulka ahaa lacagaha ay siinayaan dadka qoysaskooda ka soo jeeda ama dadkay u gartaan taas si looga guuro istaraatiijigii guud waan bedelay waxa la sameeyay one stop center wax lidhaa adeega hal goob ayaa jira jigjiga tusaale ahaan 6 adeeg oo hal goob ayaa jira dhagax buur laba jirta qabri dahar laba goday afar ayaa jirta adeega hal goob la yiraahdo adeega hal goob muxuu qabtaa adeega hal goob wuxuu qabanayaa dhalinyarta shaqo la'aanta iyo dadka kale ee shaqo la'aanta ayaa iska diiwaan geliya ninku doonaya ahaada meeshu doonaya ka soo jeedo marka iska diiwaan geliyaan kadib diiwaan gelinta la diiwaan geliyay waxa lagu sameeyaa screening baa lagu sameeyaa shuruudo 24 qodob ka kooban ayaa jira oo standing committee uu qiimeeyo markasta dhalinyarta marka la isku xidhayo maxay business planka markay keensanayaan tababar hadii la siinayo shirkad hadii loo abuurayo isla markaana hadii loo sameeyo shaqo abuur waxa la eegaa wax shuruud la'aan ma jirto horta waxa la sameeyaa screening after that waxa lagu eegaa criteria ma buuxin karaan ayaa la eegaa marka kadib lacag qaydin oo la siiyay ma jirto waxa loo sameeyaa shirkad tusaale ahaan haduu yiraahdo qofku anigu waxaan ka ganacsanayaa furniture ama kursi sameynta iyo miis sameynta alaabta miiska lagu sameeynaya loo iibin doona mar ayaa loo iibinayaa shades baa la siinayaa meel ku shaqeysto inkasta inagu yar yihiin shadeska la sameeyay haddana dhalinyarta inta la isku xiro shades baa la siin shadeska la siiyo ayay ku shaqaysanaya iyaga xoogooda iyo aqoontooda tababara la siinay entrepreneurship ama sida loo shaqaysto lacagaha sida loo save gareeyo iyo arrimahaas la siinaya marka dhalinyartu inay ka mid dhaliyaan shaqadaas ayaa loo baahan yahay hadda furniture-ga aad aragtaan ama meelaha sariiraha lagu sameeyo deegaankeena intooda badan dhalinyar baa ka howlgasha itusoo itaabsi haddaad raada hadda maanta haddaad baxdo wadada jinacsani haddaad marto 3 ama 4 meelaha lagu sameeyo waxaad arkaysaa kuraasta lagu sameeyo intuba shaqo abuur ay yihiin oo madax taabasho hadda la rabo ta kale waxaa jirta shirkado yar yar oo dharka tola ragga dharka tola ee dumarka xijaabada u tala deegaankeena inta ay ku badan yihiin intay sameeyaan waad ka warqabtaan taana waxa loogu sameeyay shaqo abuur ahaan macnaha madax taabashada xagga kale lacagaha la bixinayo inta soo noqotay hadda sanadkan haddaan eegno 67% ayaa soo noqotay lacagii amaahda ahayd la bixiyay macnaha deyn ahaan lagu bixiyay sanadihii hore hadda 2010kii lacagtii la bixiyay 1% lagama hayo waxaan looga haynin lacagta qofka la siiyay document lagama hayo meel ku sugan yahay lama garanayo lacagta waa la qaybsaday qaydin baa lagu qaybsaday hadda sanadkii 2012kii lacagaha soo noqday ayaa deyn ahaan dib loogu celinayaa dadka sanadku ma dhamaanin 67% ayaa soo noqotay deyntii la siiyay ee lacagta revolving fundiga ahayd maxay ahayd lacagtii deynta ahayd ee wareegtay lacagtii deynta ahayd marka waxa guul weyn ayaa jirta oo dadkiina waxay barteen savingiga lacagta in la kaydsado lacagta la kaydsado 67 milyan ayaa hadda kaydsa shirkadaha yar yar ee la sameeyay 370 labada sano gudahood 370 shirkadood oo yar yar ayaa kaydsaday lacag inta leeg 3070 shirkadood ayaa kaydsaday lacag 67 milyan ah marka lacagaha la kaydsanayo kaydsiga waad ogtiin saan ku nahay haddana sida loo kaydsanaya waa isbedel aad u weyn baan leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyntaan jawaabaha u gelin waxaan jecelahay inaan aad ugu mahadnaqo Dr. Duwalaal oo kamid ah waxgaradka deegaanka oo isleeyahay dadka isaga la jiilka oo qofka kaliya barnaamijyada noocan kala soo qayb gala had iyo jeer wixii khibrad iyo tusaalaha soo jeediya marka waxaan jecelahay inaan si gaar ah aan ugu mahadnaqo maadaama maanta inala joogo barnaamijkan markaan u soo noqdo dhinaca su'aalaha ugu horeyn su'aashu doctorku soo jeediyay uu ku tilmaamay dhinaca dabeecadaha dawladaha Afrikaanka in xoogga la saaro meelaha caasimadaha ah oo gabadhii u dambeysay Firdowsana ay su'aal taa lamid ah magaalooyinka kale 93 degmo yaa u maqan oo su'aalis kamid oo ah runweyn marka dhinaca ka eegto laakiin arin ay dawladdu sabab u tahay
oo dawlad tiri jigjiga iskugu kaalay imika deegaankeena ma jirto laakiin dadkii jigjiga iskugu wada yimaadeen marka dawladdu inay dadka daba socoto meesha dadku ay ku badan adeegii la siiyo waynu ku qasbannahay laakiin istaraatiijiyahan maxay nooga yeelo wayaan su'aashu waddanka marka laga soo bilaabo istaraatiijiga guud ee waddanka ee horumarinta magaalooyinka waxa ku cad Addis sidii lagu xakameyn lahaa magaalada la yiraahdo Addis waxay 10 jibaar ka weyn tahay magaalada ku soo xigtay Itoobiya magaalada Itoobiya waxay ku soo xigtaa waa magaalo dadka ku nool 600 kun ayna ka badnayn waa magaalada labaad ee Itoobiya ugu dadka badan iyadiina halkay maraynu ognahay marka waa 10 jibaar ayay ka weyn tahay magaalada ku soo xigtay sidaana magaalooyinka kuma kori karaan inaga deegaanka marka timaado waa saas oo kale qiyaas imika inaga jigjiga iyo goday inta u dhaxaysa isbarbar dhigaan dadka ku nool adeegyada ka jira markaad u fiirsato iyada magaalooyinkeennii kale baaxad inta u dhaxaysa aad bay u sii balaaranaysaa markaad eegto marka arrinta in la xakameeyo wadan ahaan qorsho jiha loo dhigay oo corridors loo sameeyaa jira oo intaasoo corridor la israaciyo inaga imika jigjiga dhinacan iyo wajaali waxay ku jiraan corridor dar dhabiya harariyo in goday qabdahar iyo saal isku raaciyo dhagax buuriyo marka istaraatiijiyahan marnaba ma aha qorshuhu inaynu meel uun intaan wax kasta isku geynayno taa uun sii ballaarino hadda toolana meel la xakameyn karay bay noqonaysaa waayo haddii dadkii oo dhan halkan isku yimaadaan khayraadkii wixii laga faa'iideysan lahaa ee waxaanaynu ka hadlaynay shaqo abuurkii wax halkan la isku wada iman kara ma meel kasta khayraad baa yaala khayraadkaasi dad buu u baahan yahay meeshii fadhido oo joogo oo ka faa'iideysta marka istaraatiijiyahan arrintaasi ma jirto laakiin dhinac markaad ka eegto run weeyaan waa arrin aan anaguna imika qiimeynay dhowaan in kow deegaanka marka la eego 6 maamul magaalooyin leeyahay waa magaalooyin ismaamul iskalo ismaamulay ka dhigay fikradii waxay u ekaatay in magaaladu deegaankuba uu leeyahay 6 magaalo oo marka la yiraahdo maamul magaalo in magaaladii meeshii ahayd 6dan ismaamulka uu iska leh in maskaxda dadka ay kaga soo dhacayso in xoog la saarayo in marka la yiraahdo magaalo in wax maal gelino in 6dan xoog la saarayo arrintaas inay khalad tahay waan qiimeynay dhawaan oo ina ahayn arrin in wadas deegaanka magaalooyin badan baa ku yaala waa in magaalooyinkaasi isku mid looga shaqeeyo kuwani waa kuwa miisaaniyad iska laba aynu ka sheekeynaan marka ismaamul leeyihiin dawladdu miisaaniyad bay u qabataa mashaariic kale iyo ila kale wax ka helaan baa jira magaalooyinka kale dhibta koowaad ay haysataa degmada imika degme hebel lagu leeyahay magaaladeeda hal mashruuc kama qabanayso waxay ula dhaqmaysaa magaalada sidii waxay tahay qabalayada baadiyaha kale miiga un baa loo tiriyaa iyada haddii degmadaasi ay leedahay 15 santar ama qabale miisaaniyadda markay degmadu jabsanayso hal santar oo kale baa laga soo qaadaya magaaladii meesha ku taal wax la gelinayo oo horumarkii magaalada wax ka qabanaya ma jiro marka arrinta inaynu ka leexano arrin aanu hadda istiraatiijiyad ahaan u qaadanay weeyaan waa arrin khaldan oo aynu ku soo soconay laakiin aan lagu sii socon karin laakiin markaad eegto warbixinta soo jeedinay jigjiga kaliya ma ahayn iyadoo koobnayd jidadka kale waxaan ku soo daray magaalooyin hadda ka hor aan xataa soo hadal qaadba jirin in jidad laga sameeyo inaynu bilownay isku mid maaha sidaad sheegaysan run weeyaan oo halkan jigjiga imika 28 kilomitir kan nidhi goday waa 10 kilomitir laakiin de markaad runta eegto isbarbar dhigto labada magaalo si ay u kala weeyeen arrin aad u sii kala fog maaha dhagax burin waa 2 kilomitir iyo badh qabridahna waa saas oo kale iyagana in la sii xoojiyo magaalooyin kale loo dhaadhaco qasab weeyaan laakiin dadkeenii caasimadii meeshii la isku yimid inaan iyadana si il gaar lagu eego oo aynu horumarkeeda dadajino waayo wax horumarkeeni maadaama wax badan oo dib inooga dhacay uu jiro weeyaan maadaama wax badan dib inooga dhacay haddii arrimuhu ay iska sii socon lahaayeen si isku dheeli tiran baa wax loo wadi kari lahaa laakiin jigjiga in xoog la saaro oo kuwa kan la dadajiyo waynu ku qasbanahay inaynu sameeyno arrimaha kale doctorku soo hadal qaaday dhowr qof oo kale soo hadal qaadeen arrimaha leydhka iyo telefoonada waa hay'adaha federaalka ee deegaankeena ka shaqeeya xafiisku waxyaabaha waajibaadkiisa ku jira inuu hay'adaha la socdo waxyaabaha ay qabanayaan uu dabagal kuwani waa si gaar ah maadaama ay dadka noloshoodii saameynayaan halkan joogaan arrinta leydhka sida aad u hadasheen bay 100% u jirta waxa weeyaan hay'ad isku dhex daadsan shaqada socoto ay annaga nagu adkaatay xataa inaan xakameyn in la jiheeyo labada bilood imika xafiiska jooga imika muddo 7 ka hor ninka haysta leydhka guud ee wadanka Shifarraw ayaa halkan yimid oo madaxweyne ku-xigeenka aniga iyo xubnaha kale khuseeyeen xaggan aan kula shirnay in meeshan horta isbedel degdeg laga sameeyo waxaan leenahay regional office waxaanu leenahay xarunta deegaanka laga maamulo jigjiga ku taala maaha jigjiga kali in isbedel loo baahan yahay horta waan isla qaadan oo sidan aynu wax ku sii socon karin muddo 2 toddobaad gudaheeda in wax lagu bedelo
hay'addu dee waa shirkad dhinacna inay ay profit hesho ay faa'iido soo saarto loogu talagalay dawladdu leedahay laakiin say u kala daadsan tahay markaad aragto wax fara badan oo ka khariban oo u baahan in si degdeg ah loo saxo ayaa ku dhex jira hay'adahan waxa imika markaad eegto jigjiga district office-ka gaarka marka ka guud laga tago ka jigjiga oo meelo badan qaabilsan waxay leeyihiin hal gaari oo emergency-ga lagaga shaqeeyo oo hadduu maanta xarshin leer ku damo waxbada gaariga in la sugo intii tagayso magaalada dhexdeeda haddii wax kasta dhaco iyagina iska fadhiyaan wax xirneen gaariga sugana waa ka la sheegay hadduu tiirku sii dhacay oo laba ay ka sii horeeyeen waa in inta meelaha la soo marmaray la sugo marka arrimahaas oo dhan waa isla qaadan inay saxayn hadda 7 gaari in lagu soo taakuleeyo degdeg la isla qaatay oo degdeg u yimaadaan xag sidan ay u dhisan yihiin si ay ku sii shaqeyn karaan iyaga laftooda ma baaha dhibaato guud oo haysatay wax lacag horta urursadaan adeegan ayna siinayaan bidku bood garanaysa wax lacag oo nimankaas ay naga ururiyaan ay hayaan oo day ahayd wixii la rabay dib loo geliyo ma jirto macaan magaalooyinkeena badankeedu imika haynu gaarno dhibta guud ee arintu doctor ka hadlay wali meelo badan mu gaarin leeyahay imika dhagax bur leeyahay baa laga sameeyay Soomaa waa station weyn station kaasi waxa isku quwad yihiin kan jigjiga ku yaala dhibta in haysataa waxa weeyaan deegaankeenu maadaama ballaaran yahay dhagax burka ku yaala wuxuu u gelin karaa meesha u jirta 120 kilomitir hatta gobolka dhagax bur buuxin karo daroor lama gaarsiin karo imika gobolka Jara dig lama gaarsiin karo gaashaamana lama gaarsiin karo waa la yidhi ku dhex yaal waa station-kii weynaa ee intaas oo bilyan ay lacag ku baxeen ee la inooga dhisay dhagax buur meelaha loo jiidi karaa maadaama dadkeenu ay firiirsan yihiin ka faa'iideysigiisa aad u adkaado imika fiiq in badan buu ka jiray Soomaa 1% ma intaanu ka isticmaalnaa leedka waayo warshadana ma hayno magaalooyin waaweyn oo badan oo loo jiidaana ma jiraan marka labadii dhinacba waynu ka dulmanay nacam inagii maadaama inuu sidan aynu u deganahay si adeeg imika deegaanada kale maadaama dadku isku dhadhow yahay oo dad degan yahay meeshaas oo kale dhagax bur laga dhiso kala marka meel laga dhiso isticmaalku markaaba aad buu kor ugu kacaya waayo magaalooyin yar yar oo fara badan oo dhinac kasta ku yaalo loo gelinaya jira marka horta iyagii adeegan layna siinayna waxa jira culays badan oo ka imanaya waayo dadka deegaankeena ku nool intan aynu haysanaa way nagu filan lahayd hadaynu isku dhadhownahay laakiin ma jirto imika kii goday la geliyay hargeysa ma gaarsiin ka taxgeed gaarsiin jarrati ma tayi karo dawlad cadda wax gaarsiisan ma jiro field to lead gaarsiisan wali ma jiro marka dhibaatadaasna way haysataa laakiin hay'adda 100% dhibaatooyinkan jira inay jiraan oo ay u baahan yihiin in nidaam loo sameeyo lagu sixi karo waxaan lagu dabagalay ay noo sahlanaato ta kale ka qayb gal'aanta inaan ka qayb galayna dib weyn oo dadku iska qaylayaan imika arrinta shaqo abuurka ay hibana saa loo weydiinay la isku haysto xagee heedin la gala dadku inay galaan hay'adahan oo kale dhalinyarteenu ka shaqeysan markay soo qalin jabiyaan qofka TV-da ka soo baxay laguma talagelin inuu xafiis ka shaqeeyo TV-ku waxa weeyaan waa college farsamada gacanta lagu barto weeyaan oo koow ka tahay arinta leedko kale imika aynu isweydiinay telefoonada dawladda isbedelku markuu dhacay muddo aanu maleynay inay 5 bilood ahayd markii la joogay ayaanu isku daynay in hay'adaha federaalka aynu ka helno waayo waanu garanaa culayska haysta hay'adaha federaalka aynu ka helnay dad dhalinyarteenu ka shaqo gasho wad xasuusin bariga TV-ga laga soo daayin badan shibriga ugu horeeyay inuu weydiinay shibriga imika adaana joo aad sabab ka ah duqba haysatay bariga imisa qof u baahan tiim beetri imisa ku dara annagu markaanu eegnay waxaan nidhi 200 aan helno dhalinyar 200 baan ku ridnaa ugu dara soo qortaa ridhi 200 TV-ga laga xaysiiyay waxay socoto muddo biliye bada 54 qof aan leh 54tii tababarka markii loo diray ay yiraahdeen aan soo tababarno tababarkii waxa tagay 44 meelaha markii tababarkii dhameysteen leeyahay hal lagu kala qoro jibriyada wadanka waxa maalinkii ugu dambeeyay meesha lagu kala qorayay taagnaa 22 waxaan ka badnay 22 kii baa lagu kala meeliyay ilaa jibriyada wadanku way badan yihiin inaga halkan waa challenge baa la keeni karaa millaka ku yaala ka moojo ku yaala ilaa inay la soo qabsadaan baa la rabaa hadda tolo xataa meeshan inaad madax ka noqoto qof soo maray hay'addan waa inuu jiro oo nidaamkii u shaqeynayay wixii fahansan oo garanay 22 ka u dambeysay xog ma hayo laakiin waxaan aaminsanahay maanta inay shanna ka joogin nacam waa malahayga nacam sidii wax u socdeen markaan qiyaaso hay'adaha kale kuwan leerka ka mid ah oo leeyahay 100 qof keen oo degdeg ah oo jigjiga oo ka hawlgala jigjiga bangiga ka mid aha telefoonada ka mid aha hay'adahan u tagnay ilaa 1,000 qof ayaana la siiyay oo hay'adaha federaalka in laga shaqo geliyo dhalinyarta deegaanka waxa ilaa maanta kuma jirno aynu wada hadlano waa 2 sano kadib markii aanu bilownay hindisaha marka arrimo u baahan inuu dib iskugu noqono bulsho ahaan dib la isku eegaa jira haddii hay'adahani
dadku imika waxyaabahan iyagu ay eedeynayaan dadkani maadaama ay dadka leeyihiin inay cunaqabataynayaan bay dadku u haystaan kuwii leerka joogay kuwii telefoonka joogay inaga inaan galnay cid noo diidan ma jirto marka arrimaha lafteedu inaynu dhinaceena ka saxno muhiim weeyaan si hay'adahan shaqadooda aynu ula soconno oo wax laga saxo sida la sheegay dhalinyartii noo soo baxasay boqolkiiba boqol waxay rabaan inay hay'adihii dawladda jigjigumay dadkuna wada rabaan horta maba aha degmooyinka xataa kuma karaysid qofkii imika meelo badan markaad soo martiin macallimiin la'aan baad arkaysa imika kulliyadda caafimaadka deegaanku markay wax tababarayso waxaa soo qorta degmooyinka soo moogideen degmo kasta la yidhaha intaasoo qof keenso maxaasaa loo leeyahy ilan waa la odhan kari lahaa un ardayda guud has ka soo tartamaan qof ku noqdaa la rabaa meeshii oo hadda dadkii u adeega oo xaggaa taga taa xataa lama helayo iyadoo degmadii soo qoratay ayaa qof ku noqda oo ka shaqeeya xaruntii caafimaadka meel ku taalay degmada aan la helayn iskuulkii meel ku yaalay qof macallin oo dhiga lama helayo macallimiintan waxa la rabaa inay degmooyinkii soo qortaan oo iskuuladooda ay ku qortaan marka u dambaysa marka culaysyada noocaasi maadaama ayna haystaan ayaa waxyaabo badan oo khariban inay iska sii kharibnaadaan ayaa sii sahlaya laakiin arrimo u baahan in la saxo weeyaan madasha aad baan ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta kasoo qayb galay su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa cabdiraxmaan ciid su-aashaydu waxa weeye waxaad inta badan xukuumaddani ay xoogga saartaa mashaariic la fuliyey dhinaca kale laakiin waxay hilmaamtay shaqooyinkii rutiinka ahaa ee bulshada adeeg bixinta lagu gaadhayay xukuumaddan iyo tii ka horeysay dhinaca adeeg bixinta macnaha markaan adeeg bixin leeyahay waxaan ka hadlayaa haddii aad qabalee mustawaqi u doonatid ama aad liisan xafiis u doonatid ama aad adeeg iskuul aad u tegtid ama xarun caafimaad maxaa isbedelee aad ka samayseen dhinacaas berihii hore waxaa jiri jiray tiim la yidhaahdo kooxaha dabagalka oo degmooyinka soo qiimeeya oo dabagala kuna qiimeeya inay fulinayaan istaraatiijiyadaha iyo boolisiga dowladda kolba soo saarto iyo in standards lagu shaqaynayo hadda waxaad moodaa inaad iska hilmaamteen nin kasta xafiiskiisa isagaa leh xafiisyadii degmooyinku waxay noqdeen one man office cid ku qiimayso oo ku dabagasha ma jirto tiim xaggan laga diro oo inta la isugu yeedho findingigoodii wixii ay soo arkeen adeegiin sidiisii loo fulinayo lagu qiimeeyo ma jirto marka arrimahaas maxaa idinka qorshaysan midda kale xafiisyada heer degmo sektarka ay hoos tagaan ee heer deegaan lama xisaabtami karo maxaa yeelay madax xafiisyeedkii iyaguma magacaabayaan wuxuu hoos tagaa xisbi oo soo magacaabo lana xisaabtama marka xisbi iskula xisaabtankii iyo qorshe ku shaqayntii iyo wixii oo dhan inay meesha ka baxeen ayaad moodaa oo connections iyo saaxiibtinimo iyo adeegii lagu helo idinkuna waxaad xoogga saartaan keliya ta intaasoo wadaan dhisnay iyo policy iyo siyaasad adeegii routiinka ah ee bulshada wax ka bedelay noloshoodana waad hilmaamteen kuwaa maxaa idinka qorshaysan xafiisaan waa su-aalun bay ahayd waa su-aashinba macnaha wadaayeen xafiiska howlaha guud waxyaabaha uu u qorshaysay wax weyn horumarinta magaalooyinka waxna ka mid ah master planka magaalada jijiga waxaad aragtaa marka waddo la dhisayo in intaasoo dhismo oo kale la dumiyo taasna waxa ugu wacan horumarku magaaladu bulshada uu daba socdaayo ma hor socdo guryo la dhisay ama xafiisyo diirir loo dhiso waxaad arkay markii master planka la keeno la duminayo intaasoo kharash oo jidad lagu dhisi lahaa ayaa lagu bixiyaa kharashka dudahidii oo kale haddaad tagtid waa magaalada bartankeedii meel kasta waa ciin dadkii waxay baryayaan in master plan loo bixiyo si ay guryo u dhistaan beritoole markuu qofkii iska dhisto guri waddaa imanaysa waddadii baa ka duminaysa marka waxay ahayd 20 sano ka hor in meesha jidmaray iyo meesha una maraynin in la sii kala ogaado ayay ahayd xafiisyadan kale ee federaalka idin hoos yimaada ee mabraad haylkii iyo waxaana aad baa loogu dhiban yahay waxaad la socoteen inuu meel kasta tiiro ka soo dhacayo marka cabasho loo geeyana lagulamaba hadlayaba aniga tusaale ahaan xaafadayda tiir waxa jira dhacayo oo in yar dhulka u soo jira shalay toole ayaan tagay xafiiska waa cabashadii baan u gudbiyey waxay u yidhaahdeen warqad ku soo qor luuqadda federaalka ku soo qor luuqad afxoosh baan ugu qornay waan u geynay waa kan wax ka qabta beritoodaan kuu qabanaynaa bay yidhaahdeen oo ka soo jaraynaa ama dib ugu noqonaynaa maanta waxay yidhahdeen waa maalin shaqo ma tegi karno wixii waa emergency dad ku dhimanaya oo xoolo iyo ku nafwaayana way jiraan marka laamaha federaalka miyadaan horta idinku la xisaabtami karin awood miydaan u lahayn inaad kula xisaabtamtaan adeegan ay shaqada u hayaan maadaama institution dowladeed uu yahay oo tala bixin kaga samayn kartaa ninka meesha haysta meeshu waa macnaha waa dirty business baa ka socota markaad eegtid waxaa jira haddii aad
three face isoo geliya jiraadada shirkadooda meel shaqo ku samaysanaysid oo ama waa inaad intaasoo laaluusha aad bixisid ama intaasoo connection aad samaysid idinkuna lama xisaabtamaysaan dhinaca shaqo abuurka waxa weydiin lahaa waxay noo sheegtay shirkado badan oo shaqo loo sameeyey ma noo sheegi kartaa hal shirkada oo hormuud u ah shirkadahaas ood magaceeda noo sheegi kartid oo ugu yaraan 50 qof shaqaalaysiisay 50 qof shaqaalaysiisay ugu yaraan oo lagu faani karo oo shirkadaha kalena hormuud ahaan loo tusi karo waxaynu ognahay shaqo abuurka marka lacagta loo qaato in ninka lacagta bixinaya ninka kale intay israacaan ama baajaaj lagu iibsado wixii proposalka ku qornaa wax ka duwan lagu sameeyo ayaynu la soconaa taas iyada macnaha maxaan raadayay maxaad ituso itaabsiya oo nooga sheegi kartaa wad maadsantiin waad waxaan weydiinayaa wasiirka cabdiraxmaan ciid maadaama uu xafiisku gacanta ku hayo magaalooyinka deegaanka kuwa hadda jira iyo kuwa soo koraya saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa mustaqbalka xulitaanka loo xulayo maamul magaalooyinka maadaama uu gacanta ku hayo magaalooyinka kuwa soo koraya iyo kuwa hadda mustaqbalka saameyn intee leeg buu xafiisku ku yeelan karaa xulidda maamul magaalooyinka maadaama uu ogeyn sida wax loo xulo marka hore su-aasheeda labaadna waa wasiirka cabdiraxmaan waxaa jirta goobo tiirasha leyrku ay u taagan yihiin muddo sanada ah degmooyinka marka loo eego kuwa maxaa idinka qorshaysan wasiir inaad leyrka u sii daysaan dadku ay tiirka un eeganayaan labada su-aasheeda kale waxaan weydiinayaa marwada xafiiska komishinka shaqo abuurka xafiiska shaqo abuurku dadka loo sameeyey maxaa shuruudo lagu xidhaa ama lagu xushaa dadka loo sameeyo shaqo abuurka ma documenti baa lagu xushaa ma sab kalaan baa lagu xushaa nacmujada lagu xushaa maxay tahay waad mahadsantihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan kariim dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan dhammaantiin sidaad halka nabad qabo ugu fadhidaan su-aalahayga waxaan ku horreysiinayaa xafiiska shaqo abuurka tirada cadadka ama cadadkaad hadda ka dhawaajisay hadday yihiin cadadkaad shaqo abuurka u samaysay oo deegaankan ka howlgala miyi iyo magaalaba waxaan rajaynayaa in ummadda maanta deegaanka wada joogta ay noqon lahaayeen kuwa taajiriin ah su-aalahayga hadday aan bilowdo xafiiska shaqo abuurka hortu halkuu ka dhacaa seeyaa shaqo abuurka loo sameeyaa xaggay joogaan kuwa aad shaqo abuurka u samayseen ama shirkadaha toobka ah ee maanta deegaanka ka soo baxay xaggay joogaan lacagta aad bixisaan ee shaqo abuurku ma tahay mid riba la-aan ah waayo ummad muslimiin ayaan ahay beenahay inagu caqiidadaada iyo dhaqankaagu inay iskhilaafaanna waa arrin aada u xun soo lacagta aad bixisaan riba la-aan ma tahay ma qiimaysaan tayada ganacsiga qofka marka proposalka uu soo qorto ganacsigiisa ma eegtaan inuu yahay mid bulshada ku badan waayo si uusan ganacsigu u dabargo-in 10 dukaan maanta hadday aad saf wada gelisaan dee ganacsigu markaa wuxuu noqonayaa wax laga guuro ganacsiyo badan waxaa jira isbedbedelo laga guuro marka ganacsiyadii laga guuray iyo shaqooyinkii laga tagay oo bulshada qaarkood maxaan ku dhahay nin hadduu halkan dukaan cusba ka furto adna dukaan cusba kan kalena aad ka daba furtay ku kalena dukaan cusba ka daba furto waxaa noqonaysa meesha waxyaabo badan baa khalkhaldamaya marka ma yihiin ganacsiyo xul ah ood u eegtaan inay deegaanka faa'iido badan u leeyihiin ma qiimaysaan qofkani familka uu ka yimid iyo inta lacagta aad siinaysaan ma ku xidhaan tayada qofkan qoyskiisa inta ay la eg tahay iyo baahida uu u qabo arrinta master planku oo aanan ku soo darin qorshaha waa qorshahagayaasha magaalooyinka loo sameeyo oo markii aan si kooban u soo dhigayay waxa aynu sameynay aanan ku darin waxyaabaha aynu ka qabanno magaalooyinkeena guud ahaan bay ka mid tahay oo magaalada lagu jiheeyo horumarkeeda in lagu qaabeeyo sidoo cabdikayd su-aasha usoo dhigay run weeyaan dhibta jirtaan waxay maadaama la fulinay maadaama la raacayn weeyaan oo cid jihaynaysa dadkii ayna jirin imika jigjiga waxa ka socda oo maalin dhaweyd qaarkiin aad ka soo qayb gashan baa laga yaabaa markii bulshada lagu casuumay in qorshahagihii guud ee dhamaystirnaa magaaladan imika ayaan wadnay imika xafiisku waday sanadkii u dambeeyay imika gabagabo maraya maalin dhaweyd in bulshadu ay taladeeda ku darsato xaggana lagu qabtay kulan baa xaggan lagu qabtay qorshahagaha marka la sameeyo waxa la rabaa in la fuliyo inuu miis meel iska yaalo ma iyadoo laga yaabo waqtiga wixii laga fikirayay waqtigan inuu kala duwanaado xataa hadda saraado wada samee laakiin in la fuliyaa muhiim haduuna fulin dhibaatada imika ina haysataa imanaysa oo qorshahagihii aynaan ku hagin marka magaalooyinkii dhibaatada haysata ee koowaad waxa weeyaan qorshahagayaashan la sameeyay dadkii lagu jiheeyo oo la raaco
iminka caasimaddeena jigjiga waa meesha ugu weyn magaalada cidda wax shahaysaa sida loo degayo waa ninka beerta iskale ee jajabinaya iyo ninka dilaalka isagu siduu beertiisa u jajabsado uu wadada ka dhex saaran baa wada noqonaysa wadadii ku jirtay qorshahagaha magaalada cid ogba ma jirto siduu ahaa ciddii buu tixraaca saaran ma jirto marka arrintaas inay absolutely socon kareen arrin noocaad weeyaan oo sida aynay cid ku sii soconay arrintu abdikad sheegay run weeyaan imika wadada mishinka soo ma dhisan 65 milyan baa ku baxay magdhaweed 65 milyan maxay deegaanka u qaban lahayd 65 milyan oo bir in magdhaw ma hatii wadada ku baxay dadka in loogu magdhawo dadkii guryaha ay ka dumayeen marka arrimahaas waa dhibaatooyin haysta arrimaha sameynta magaalooyinka su'aal la soo dhigay baa jirtay sameynta xulidda dhawaan waxa la ansixiyay xeer nidaameed in si nidaamsan magaalooyinku arrinta magaalooyinku waa arrin farsamo weeyaan laakiin arrin siyaasadeed bay inaga gashay waa sababta magaalooyinka inuu horumari leeyihiin waa sababtaas il siyaasadeed baa lagu eegaya haddii imika magaalo la ansixinaya yaa wax kula sidee noqonaysa waxaas dirba la falanqeynaya ma aha meeshan magaalo ma u qalanta mise ma qalanto shuruudaha la sameeyay labada shuruudood ugu muhiimsan waa mid waa dadka ku nool meesha 40% bay qaadanaysaa iyo dakhliga ka soo baxa meesha oo 50% 50% labada qodob weeyaan in labada qodob la qiimeeyo maxaa dakhli ka soo baxay ma aha dakhliga ka soo baxa miisaaniyada la qabtay dakhliga ka soo baxa sida tooska uga soo baxa isla magaalada iyo dadka ku nool la eego labada qodob inay 50% noqdaan qodobka ahmiyadda maamul ay leedahay magaaladuna 10% ahmiyadda maamulka leeyahay caasimad oo kale caasimad gobol tu degmo in sida loo eego oo 10% kaana inta loo qaybiyo 50% in arrimaha istiraatiijiyada iyo ahmiyadaha kala duwan la siiyo master plan may leedahay magaaladani imisa tuulaa ku xidhan oo ka adeegta qodobo noocaas oo 50% oo iyaguna tafatiran oo balaaran maalgelinta dhul may u diyaarisay magaaladu waxyaabaha weyn marka ma imika la ansixiyay dabeecadiis baa la wadaa sanadka cusub markaynu galno in si farsamo loo eego weeyaan magaaladu xagee magaalada noqon kartaa intaynu qodob shuruudaha raacno weeyaan inaynu arrin siyaasadeed oo degmo kale wax kala qaybsanaya laga dhigo macquul ma marka xafiiska waajibka saaran waxa intuu daraasada soo sameeyo inuu golaha fulinta soo hordhiga kaabineyga daraasadaas lagu soo kala saaray saasi kale yihiin magaalo kasta marka darajada heliso kuwan imika inoo jira wali darajo ma laha qaab dhismeedkay ku shaqeyso wajaale iyo jigjiga isku mid weeyaan oo macquul ahayn waa laba magaalo aad u kala duwan qaab dhismeedka jigjiga baa loo wada dhaadhiciyay marka macal kuwan in darajo la siiyo oo magaaladu ay xad yeelato meel ay maamusho yeelato ay ku shaqeyso waynu ku qasbanahay arrimaha la xidhiidha adeegyada oo gabadha ay soo jeedisay Fardowsa waan aaminsanahay waa run ahaanteed way jirtaa laakiin waa arrinteed bulshada lafteedu inaan wax kasta xagga dawladda u soo riixno ma fiicne bulshada lafteedu doorka ku leedahay inaan dareeno weey imika dhawaan waxaan sameynay hanti dhowr arrimaha maamulka dhulka magaalada ay wax u socdaan jigjiga hanti dhowrka waxyaabo badan baa ka soo baxay oo ugu horeyso ku inta hal fasax guri la soo saaro ayaa meelaha qaar kood 3 guri baan soo aray 3 guri baa la soo saaray oo lagu dhisay hal fasax guriyaha aan fasax la'aanta lagu dhisin tiraahan wad qiyaas kartiin idinku maanta qofku muxuu sameeyaa marka laaluush waxa uu ka bilaabmaya waa halka maadaama wad sharci haysan inaan ninkan ku imanaya ku dabageliya iskaga dhaqaajiso laaluush hadduu qofku soo maray nidaamkii saxda ah oo fasaxiisa haysto oo la ogol yahay dawladdu sabab uu qofku laaluush ku bixiyaa haba yaraatay ma jirto waa wad haysta cashuurtii baad soo shubtay sababta aad u bixinaysaa waa maxay laaluush sharcigaagi baad haysataa sababtu waxa weeyaan guryaha la dhisayo inta sharciga in leeg oo bilaa sharciya jirta qofku muxuu sameeyaa imika tusaalahan sharciga la qaadanay laftiisa 50% in ka badan ay sharci darasi yihiin waa ka sharciga haysta qofku wuxuu kula soo baxayaa 2 qol markaasuu dhisanayaa guri villa iyo 10 qol ma sharciga taas ninkii qabalay markuu yimaado warqad eego waa 2 qol adigina guri villa aad meesha ka wada marka dhibaatooyinka maadaama bulshadii lafteedu ayna raacin nidaamkii dadkii in la sii wasakheeyo ayay arrintaasina keenaysaa marka arrinta nidaam imika maamulka magaalada waynaga u sameeynay magaalo hoosaadada weli in kastayna si fiican u hirgelin waxaan rabnaa sanadkan inay si fiican u hirgalaan arrimaha u muhiimsan ay qabanayaan arrimahan ay noqoto imika meel gaar oo loogu taga fasax ma jirto in magaalo hoosaad kasta meesheeda ay tagto oo ay fasaxa ka qaadato si dhow inay u daba gasho hadda way u fududaanaysaa hal arrin oo nidaamka ku soo gabagabeyn arrin cabdikeed soo jeediyo dabagalka dhinaca magaalo ee maamul magaalooyinkii cidda dabagalasay ka war haynaysa horta guddidu way jirtaa sanadkii 4 jeer rubuc kasta dabagalka xafiiska madaxweynuhu sidiisii buu jiraa rubuciina hal mar buu baxaa arinta guud ee ah in imika xafiiska beeruhu ee degmadu una xafiiskan beeruhu magacaabin oo una toos uga xaqaadi karin waa arrin jirta waa arrin nidaamka maamul ku
كسرت وحياة بدن إن ديسنتر بعد أنت ما ممكن إن سمين بتشرتبه نظامكو وحياة هيد قدوميها الدجمة ده إنه يسوق دورتاني مجعمان بهيد دجمة ده برنامج كيسكلي يهين تحسولين إنه مهير قلنا قد يجانا أنت إنه تشرني ولا مهير قل لكن النظام كساسوها نظامنا صار ما وبهن إنه صحنا لكن ما كسو قد بين كرا عارف فرسمه إما كحفيز كهرمرت مجالينكو حفيز كقيمة ما من مجالينكو وحفيز ك توصي أنا نقول طلبة قادم لكن قيمة توحي كسو بح حكومتها لو قد الدنيا يحس بجبل هذه خلادات شرو وحفيز كانوا خلادات أركي كمان دقنا حكومة سر حكومة جوان قادنا صحيح عن كسو بح ما شرط هذه حفيز كبيرو هو أركو دقمة دقنا قد حفيز كبيرو شو قالوا الشقة هين إميريت لو كسو قد بين كرا اللي باتوين كشر توصي أنا هن لكن أنتوا كسو قد بيو عدة كطلبة قادنا سيئين قادته ويا فرسمهن عدة كور هيسا وحفيز كاس ولا شقين تحسين توصهن لكن ويشرتا أرين كلو لكن سجارة عد وصارن oo aynu leenahay cidaas khaladka xagga ka wada ma jirto sidan aynu u qaadanay degmooyinku inay iska madax banaan yihiin horta ma jirto annagu waxyaabahan u dhawaan qiimeynay waxa kamid ahayd isbedbedelka degmooyinku inay bateen taaba imika Cabdikeed sheegay tu ka duwan baan annagu ayaa noo soo baxay oo sidan aanu soconayna saxayn in dadka isku bedbedelka laga daayo waayo degmooyinka cida tooska u qiimeysay horta waa gobolka maamula marka gobolkii hadii had iyo jeer turnover-kan isbedelku u bato عد ماشي اللي قبضنا سو كشقين سنة ويرانس تا إنه يرانه هرت فائدة إنه وجدت لكن خلادات كتيرة إنه ماشي كسرنا وينا أرنتها سيشرين قصب ويان يدا ما كان لابد إن لسكو ميزان ودولة لماذا لفت هذا كتيرة إنه ميزان وقف كي خلاد كتيرة خلاد كسوق قبضوا حماس ومنكر لكن تتخيل وحلا برو وإلا قبضان وقت لا سيو قف كمان كشقاد الله قبضته كدي واحد بدن وطاس أصيح كرا السجل لفت يسوع أيها كتيرة أنت هسام كسوق كوبي